waa wadada Liberia. wadadii ugu qiimaha badneed oo isku socodka badneed ee halbooliyaha degmada Waaberi ee via Liberia maanta inaan dhagax dhigayno. waxaa dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. waxa ay burbursaneed oo aanan dhismo iyo dayactir aysan helin 30 sano ee la soo dhaafay. maanta xaalku waa ku duwan yahay sidii hore. waxay heshay dhismo caalami ah. waxa iska kaashaday bulshada degmada Waaberi iyo maamulka gobolka Banaadir. waxa lagu dhisay mashruuca dalkaaga ku dhiso $1 oo hindisiisa lahaa duqa Muqdisho mudane Madaale. xaalku waa baraambar. waxa laga reestay boorkii iyo habaaskii. waxa horumaray ganacsigii waxayna qayb ka qaadatay ammaanka oo nolosha laga maarmaan u ah. wallahi isbedel weyn ayaa ka muuqda Liberia sidoo hore maahan. Liberia aad bay burbursaneed dirtana u jeedaa quruxda ka muuqato ganacsiga iyo soo gaadiidka isku bedelay. howlaha aad wanaagsan ma la qabto dawladda mid loo bilaabo wadada aad u xiriir. hadda taas bedel aad u fiican baa ka muuqdo. wallahi gaadiidka dhan walbo gaadiidka kuwa dekada kuwa nakala yararka aad ugu dhibaataysaneen. wadadaas kale biyo ayaa fadhiisa marka qaar midana saxmada isaga noqon jirto. adeerta aad u wanaagsan. wallahi isbedel aad u wanaagsan ka yimaada ganacsiga kale marshabiidkan oo kale si loo qurxiyo waa ujeedaa. gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo shacabka iyo nakala gudoomiyaha degmada Waaberi. wallahi waa ilaalinayna hadda qashinka waa ka ilaalinaa biyahana waa ka ilaalinaa sidoo hore maahan hadinaan ilaashanno ku wasbanna. dhawaan ayaa lagu wadaa in duqa Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo xariga ka jaro.